ومحسنتي كسبب كيني ولكن أنا بسوي بالشيء حفلة مالنت هولندا دونكا أو كوبير من سديد ما كنا عندنا لأنه سديد ما شو حلقي أبا سؤال برا بدن إن يدرك سويديان سديد ما حلقة الله وابا تهريبنا إن ليس هذا لكن تهريب سديد ما شاء marka kasta waxa weelka ama tahriib hala ahaado ama guriga hala jooge ama meesha loo socdo hala jooge waxaan maleynayaa inay muhiim tahay haweenka in la xasuusto runtii haweenka hal dowr kaliya ma laha sida ninka oo kale laakiin waa dowrkoodii boqolkiiba 99 haddii la dhihi karo runtii waa boqolkiiba 99 marka aan leeyahay mar waa ina dhaleen mar waa qalnaa mar muxuu ahaa weelal dhashteen mar waa qabnaa marka waa garan kartaa inta boos ay keligoodii ay leeyihiin marka inta laga soo tagana waxa laga yaabaa kulligeen kuma jiro qof aaba soo koriyay aan ka ahayn qof walba hooyo kuma soo korisay naas soo siisay muxuu ahaa sanado fara badanna muxuu ahaa ku soo tacabtay taa marka waxay kutusinaysaa dowrka hooyada iyo in la xasuusto muhiimadda ay leedahay maxaa yeelay waad ogtihiin adduunka taariikhihii qof ugu horeeyay muxuu ahaa diinta islaamka darteeda u shahiida dumar ayay ahayd soo maaha waad ogtihiin nabi calayhi salaam kadib qofkii rumeeya waxaa ugu horeeya khadiija bintu khuwaylid soo maaha waxaad ogtihiin sidoo kale waddankeedii hooyooyinka taariikhda ku leh sida xaawataako oo kale iyo doonka ay soo ciyaareen iyo muxuu ahaa wixii ay qabteen qof walba wuu garan karaa wuuna fahmi karaa waxaa intaa dheer adduunyada haddaan dumar jiri lahayn dad miinis waxaa laga yaabaa inaan adduunyaba jiri lahayn maxaa yeelay haddaan guriga nolosha haddaan guriga laga dhisin ama ayna guri ka bilaaban banaanka kuma hagaagayso nabi calayhi salaam wuxuu yidhi waad ogtihiin haddaad aragtaan nin banaanka ku wanaagsan micnaheedii ehelkiisii ayaa wanaagsan gurigiisaa wanaagsan ehelka markii leeyahay gurigaa wanaagsan waxaa loola jeedaa naagtiisii ama xaaskiisii guriga ayaa qofkan lagu soo dhisaa bulshada qofkan markii la rabo inuu ummad hogaamiyo xataa ama ummadda la dhaqanka ummadda lafteedii gurigaa laga soo bilaabaa soomaalida maamaha waxay tiraahdaa nin rati wada iyo nin naag wada kaama leexdaa soomaha maxaa loola jeedaa macnaheeda waxaa waaye qofka haddii naag ka dambayso wax kastuu samaynayaa laakiin waxaa laga yaabaa nin haddii nin kale oo garabkiisii uu yahay ama nin kale la socdo inuu uusan muxuu ahaa geesinimo fara badan markuu yeelanayo markii naag ay la socdo uu yeelan lahaa inuusan yeelan marka naagaha waxaa waaye waa marna digsigii wax lagu karanayo waayo marna dabkii wax lagu shidaayay marna raashinkii laftiisii waayo marka waad garan kartaa runtii inta marka waxaan ula jeedaa intaas dowrka dumarka ay leeyihiin ayay kutusinaysaa oo ah qiimahoodii halka uu joogo laakiin waxaan ognahay dumarka Soomaaliyeed yani wax badan ama waxaa laga dhaadhiciyaa ama ay iyagu iska dhaadhiciyaan waxyaalo ka fog xaqiiqda waxaa ka mid ah marka waxyaalahaasi xagga ka qaybgalka muxuu ahaa waxyaalaha bulshada horumarkeedii ah oo ugu horreyso siyaasadda ganacsiga iyo waxbarashada maxaa yeelay waxaa laga yaabaa hadda way jirtaa baryahan dad badan oo aad u dagaalama oo runtii dumar ah oo wax barta oo siiba qurbaha wax ku barta inay jiraan iyadoo runtii aan ognahayna dadkan Soomaaliya ka imaaday ay dareemi karaan ay yihiin dumar Soomaaliyeed oo aad u fara badan muxuu ahaa inay jiraan oo hadda Soomaaliya dugsiyada sare wax ka baxay ama jaamacadaha dhigtaan waxaan u maleynayaa bulshada ugu farax badan dadkoodii ama dumarkoodii soo tahriibinaan nahay حتى إثيوبيان كسروا تهريبان ولقي الناس السودان أو تهريب اسمه كثير أنا ما أذكر إذا ما أذكر أنا ما أذكر ما أنت قريب كان شوفنا سما قريب مكة وحضرت فيهم هنتي وحضرت الصوماليين عن روائنا وقلتوا سؤال فرق طلب الأجانب يولديين واي وحضرت وحنكشرنا معلم والبدقان عن كل دفاع إنه شرفت جودها أمد الصوماليين سكر هاني دمر الصوماليين صبروا وحلوتهم دس أما
sheegteen waddanka ku soo galeen Soomaa oo wadooyinka taagan markaas aan ka soo cadaana ama la socotan ama qof isku cusubtii markuu weydiiyo Soomaaliya soo ku xagga taagan wadooyinka Soomaa maalin kasta waxaan dhahnaa warmadeen kuwaas ma kuwaas Soomaali ma sharaftoodi ma xitaa naagta wada istaagta nin guursanayana ma laha mana istaagayso naag Soomaaliyeed diinteeni iyo sharafteeni iyo damiirka dumarka Soomaaliyeed ayaa intaas bixinayna marka intaas waxaan qeexaynaa muhiimadda iyo maxaa sharafta dumarkeena ay leeyihiin markaas marar badan oo kale waxaan la weydiiyaa kuwa aan qanuun taagan ayaga dadkan gaalo ay isku dhaqan ma lihin ma yaqaanaan dadkan isku taagan waxay u maleeyaan dad meel taagan haday arkaanba dad jidkooda ka ganacsanaya inay yihiin mar aad u fara badan waxaan la weydiiyaa dumarka Soomaaliyeed maxaa meelaha taagan yihiin waxba la isku weydiiyaa Soomaa ilaa waa ogtay meeshaan baasaboor baa raadinaya dadka loo baa raadinaya wax iyaga shabax maaragtay iyo waxaas lagu jira Soomaa markaas waxaan arkaysaa dadku waxay isweydiinayaan waxay u maleeyaan inay la qorqortamo heshiis ugu jiro la wada hadlayo يعني قلبه ماشي وكم كلام رنتي الوضع يعني أنت السؤال وأنا صومري ورنتي أنت سمعها عن أنت شرط يعني ودعوايا وحرمنا مرة إنا وقصد إنه عن كلاه إنه وكرتها الصوماليات سيد شرفته ذي أي شري بوجرته وما أنت بوجرته أي أول سيهين رنتي يعني قوليه هذي يقول سيهين يعني ممكن أما الدين لها الله أما مفاها صوتها ماشي عن ربوها إيه قفل منه الصفر ويلمن حاسة هذا يعني مجا أديك الهوانت هاي يوميمها أولية هاي أيام وإن الله فيريو أما مفاها قيمه سي هل ودعايو مقول بعد جلسو أديك أو شخصية نفسها كبلاوية كل حزنايا نفهم كلام أما يعني مفاها مجا نشنالتيجا أما جنسيتها الهوانت هاي